Hello, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر هذا مقال كنا مانتا ومقال عصب وهاتن صور دعي ودقدقة. قصة مقال كان هيدين كي ردعو ما أنت دنا عن انستغرام كمان بدنين أو حنكون مشغول سنة مقال عصب ونسوي ذا جنك تدوينها بالسه مر بان 3 كي سو قادون انستغرام قلي مثلا وحن وجود سجى فريمة وبدن بقولال فريمة كم ملايين أوكي مليح ذا كوسي بدن حتى بقول كنا يقوم حدنا لكن ما أنت فريمها أي صور دعاي سيدي عادة واي كبناين أرنت عجيبك أيا وحى هيد فريمها سي waxay ku wada saabsanaayeen hal qodob arinta kasi cajaa'ibka badan ee aniga laftayda igu kaliftay inaan su'aal isweydiiyo ayaa waxay ahayd fariimaha cidda soo diraysa ee ugu badneed waxay ahaayeen gabdho bismillah war gabdhihii maxaa ku dhacay fariimuhuna waxay lahaayeen sida tan faamiyow ka soo hadal wiilka qabsaday tiktok mukhtaaro ka soo hadal wiilka sanadada badan lagu xukumay dadweynow ka soo qarba dadweynaha go'ay moogtahay dadweynow ka soo hadal wiilka gilgilay tiktok ee xabsiga dheer loo diray okay xabsi dheer waligeed baa la isu diri jiray waxaan siri talo maxaa qaldan zamankani aynu joogno dulmigiiba adduunyadan ku soo batay talo waxaan siri ma miskiin yar bay iska qabteen oo u xoog sheegteen oo dulmiyeen markiiba arrintii ma baaritaankeeda galay ilaan tiktok la sheegayana aanu ma isticmaalo kuma jiray balse waxaan galay saaxiibadeeda kale ee youtube iyo google iyo waxbaan soo baaray Cameroon la sheegay muxuu ahaa anigu Cameroon ta waxaan ku ogaa dawlad balse maanta waa iyadoo qof ah hase ahaatee Cameroon dee waa Afrika oo dad madow ku nool waxaan ugu tagay wiilkan cad haddaba Cameroon maxaad ahayd maxaad samaysay arrintiisii ayaan sii baadbaadho waxaan arkayba gabdho u borooranaya oo u tiiraanyoonaya rag ma arka hadda waa gabdho markaasaan dareemay sababta ay gabdhuhu wiilkan u difaacayaan yacni waxay yiraahdeen wuu qurux badan yahay bal aynu fiirino ورا بلاش كم دفاع عيان قبله ننكو واشدين هاي بسم الله قروح بدنا والله ورن ويلكو قروح بدين لكن انت انا جاي ما قروح بدنا هذا ويلكني واكما ويلكن مقعيسو وكاميرون هيرين وويل كوبي لباتن جيره udhashayna dalka Mareykanka gaar ahaan ku nool Florida hadaba maxay tahay sababta wiilkan lagu haystay dambiga uu geystay hadii uu dambi geystay dambigan uu geystay ma oo qalma xukunkani muuqaalka dhamaysta muuqaalka marka dhamaysataan commentigiina iyo afkaartiina xagga hoose ee commentiga kaga bixiya meeshii lagu tala galay in aragtiyaha lagu dhiibto okay Cameron Herin sidaan soo sheegay waa 22 jir dhalinyar ah quruxdaas Ilaahay siiyay Ilaahayna waliba ka soo saaray reer hodana hadaba wiilkani waxa uu aad u xiiseyn jiray tartanka gawaarida hase ahaatee haba xiiseeyay ma aanu tagin meelihii lagu tala galay ee loo qoondeeyay ee lagu tala galay dadkii wax isla hayaa inay yimaadaan lacagna walibana ay ku qaataan may asagu waxa suma baahna ma dawatay aflaantan high schoolka ay dhalinyartu ku tartamaan gawaarida mid baa gaari qaali oo shidan halka la soo istaagay mid kalena soo garab istaagaya deetana waa iskar boodayaan tabtaasoo kale weey wiilkan asagii saaxiibadiisu waxay tagi jireen meel aan loogu tala gelin oo mamnuuc ah inay gawaaridu ku socdaan xawaare aad u sareeya ayay tagi jireen deetana halkaasi ayay ku tartami jireen marar badan wax dhibaato kamaanay soo gaadhin hase ahaatee wiilkan arrintaasi caado ayay ka noqotay aad ayaan u jeclaa haddaba jariimadan ambaba dambigan ayaa waxa uu dhacay taariikhda markay ahayd 23 May sanadkii 2018 yacni 3 sano ka hor Cameron Herin oo waqtigaasi da'diisu ahayd 18 sano ayaa waxa uu go'aansaday maalintaasi inuu gymta u raaco saaxiibkii John Perino oo waqtigaasi da'diisu ahayd 17 sano haddaba sidii ayaana dhacday oo labadoodiiba mid waliba waxa uu ka haystay gaarigiisii gaarka u ahaa maxay sameeyeen waxay la tageen meel laami ah deetana waxay labadoodii go'aan ku gaadheen in ay tartan galaan tartan sharci darro labadoodiiba way sii daayeen waxa la sheegaa waqtigaasi xawaaraha uu ku socday gaariga Cameron 100 mayl ayuu saacadii jirayay haddaba muddadii ay dhalinyartaasi ku guda jireen tartankoodii waxa dhacay dhacdo runtii lama filaan ah ayagoo wadadii saaran xawaaraha aan soo sheegayna mid waliba ku socdo waxa dhacday in gabadh lagu magacaabo Jessica Rabinal oo da'deedu ahayd 24 sano oo isla mar ahaantaana sidatay gabadh yar oo dhashay oo da'deedu waqtigaasi ahayd 22 bilood ayaa waxay isku dayeen in
inay gooyaan oo dhaafaan wadadii hase ahaatee nimankan oo xawaare ku socday ayaa soo galay gabadhii dhinaca alla dhinaca u dhaqaaqday garan weyday gaadhide xawaare ku socda oo hal mar ku soo gala Cameron waqtigaasi waxa uu isku dayay oo ku fikiray in uu ka leexdo oo wadada dhinaca uga baxo hase ahaatee waa waqti aan waxba laga qaban karin haddii uu ka leexan lahaana oo asagoo shil ku gali lahaa markii ay dhacday inamadii ayaa gaadhiga ka soo degay hase ahaatee waxay u yimaadeen hooyadii iyo gabadheedii oo aad u dhiig baxaya misana ميدا أرجع أياكو دعاي مركبة كاميرون وحاو بالله إنه هو يدي لحديره أو يده هو يقف باندلي أو جاري أياكو دفتي هو يدي أيا آدو أرجع حدي حسيها هاته وايز تجي سيد تنوحي كعصتي إنه قتل مامه قابت أي دعداسي كدعدي قابتي أي أصوات المامي سيدي أيانا دعدي واي جرتي قابتي أيانا يقتمد حتى بقدمه وحرجي محكمة الصوص هاري مالني مد خميس بيشي ماي لودي يكون يكوبي لوطنكي يعني سنة كان ينكجرو كاميرون إيو جون برينو أيا محكمة الصوت هاجي labadii dhinacbana waxay soo ka haysteen lawyer ambaba seegar yaqaano dooda hadaba Cameron waxa lagu xukumay guud ahaan 24 sano oo xariga hadaba ninkan waxa lagu qaaday laba dambi waxa lagu xukumay muddo 9 sano ah inuu ku xidhnaado xabsi ku yaala gobolka Florida iyo dambiga labaad oo asna 15 sano ah yani sidee laba dambi ku noqotay laba dambi waxay ku noqotay ninkani laba qof ayaa u dilay gabadh iyo hooyadeed ayuu nafta dhaafiyay sidaasina laba dambi ayuu ku geystay danka kale saaxiibkii waxa lagu xukumay muddo 6 sano xariga John Perino waxa lagu xukumay 6 sano xariga balse muddo 15 sano ah ayaa korka laga soconaya hadaba ninkii ay nolosha wadaagayeen Jessica odaygeedii ayaa maalintaasi waxa uu yiri waxa aan tagay gurigii hase ahaatee gurigii markii aan tagay waxaan dareemay in ay meesha wax ka qaldan yihiin gurigii maana joogin muddo yar kadibna waxa la ii sheegay in ay dhakhtarka ku jiraan Jessica iyo gabadhiisii yareed Lily waxa uu yiri warkaasi markaan maqlay argagax ayaa igu dhaxay balse dhakhtarkii markii aan soo gaadhay dhaqdhaqaaqa meesha ka socda markaan arkay waxa aan yaqiinsaday in ay meesha geeri ka dhacday muuqaaladan ayaana laga soo duubay waqtigii maxkamadiisu ay socotay deedana waxa lagu soo tuuray TikTok hadaba reer TikTok gaar ahaan gabdhaha reer TikTok waxa isqaban weyday wiilkan yar ee sida u quruxda badan misna loogu xukumay 24 sano hayaay war wiilku uma qalmo 24 sano see loogu xukumi karaa gabdhaha qaar baa iska ooya qaar baa yiraah dartii ayaa waxaanu noqonayaa lawyer waan u doodayaa waan ka soo saarayaa wiilkaas sida u quruxda badan leh ee dulmiga loo geystay okay waa runo 24 sano asagoo 22 jir marka 24 sano oo xabsi ku jiro يعني حبسيga waxa ka soo baxaya isagoo qof weyn oo 45 jir ah noloshiisiiba intii ugu muhiimsanayd xabsi ayuu ku qaatay xanuunkeeda ayaa leedahay balse ayadoon xamaasada ku qaadin damiirkaaga haddii aad la kaashatid ka waran mustaqbalka gabadh yar oo 1 sano jirta iyo hooyadeed oo ayadana ah gabadh yar oo 24 jir ah ilmaheedii ugu horeysayna ay tahay gabadhaasi oo ayada lafteedu hami iyo mustaqbal adduunyadan kala hayd now kuwa waxba laga soo qaadan iyaga cidda loo tiirayoonayo waa wiilkaas lagu xukumay 24 sano sababtu maxay tahay waa qurux badan yahay wiilku uma qalmo xabsi what the hell ina yar oo dharkay oo kibray oo gaari loo dhiibay oo laba qof naftoodii dhaafiyay 24 sano wax ka badan mooyaane ma istaahila ani aragtidayda ahaan 24 sano wax ka badan mooyaane ma istaahila wax ka yar bal sawiro xanuunka ay dareemayaan qoyska ay ka baxeen hooyadaas iyo gabadheedu runtii arintaasi waxay ku noqotay xanuun dalabkooduna waxa uu ahaa wiilkaasi in lagu xukumo dil amaba se wax ka badan 30 sano wax ka yar in lagu xukumo maba aanay rabin qoyska gabadhaas xaqiiqatan waxa mar waliba la arkaa dad si dulmiya loo xiray dhibaatooyin loo geystay qaarkood xataa ay ka soo muuqdaan social media sida wiilkan idin muuqdo kale laakiin haddii aanu bilic lahayn saas ayaa loo fiirin teetana waxa la oranayaa miskiin Allah u gargaaro waa laga talaabsanayaa horta waan kugu raacsanahay wiilkani uguma aanu talagelin dambigan inuu geysto yani dilkaasi maanu ahayn mid uu ugu talagalay hase ahaatee hawshani uu ku kacay ayaa ah mid dambi ah dhibaatana horseedi karta mar waliba yani maxaa ku kalifay asagoo qof weyn oo garaad leh in uu ku kaco xadgudubka noocaas يعني tartankaasi sharci darada ah oo ku kacay miyaanu ogeyn inay dhibaato u horseedi karto ugumaanu talagelin ficilkaasi balse waxa uu ku dhaqaaqay uu ku kacay ficil
qaanuunkan waafaqsanayn oo sharci darro marka la leeyahayna waa wax bulshada dhibaato u horseedi kara yacni waa run wiilkaasi maanta haddii la dilo iyo haddii xabsi dheer lagu rido gabadhii dhimatay iyo inanteediiba dhimatay wax faa'iido ah ma jirto oo yacni ma soo celinayso naftu hadday go'day khalaas way dhimatay waa tagtay balse kaliya waxa laga jarayaa cuquubadii iyo dembigii uu geystay ayaa qaanuun ahaan looga jarayaa haddii dee arrimaha noocaasi wax laga qaban waayana berri waxa soo bixi doona boqolaal iyo kumanaan qof oo noociisa ah oo oran doona hadii anagu ugumanaan tala gelin ugu dambeyn haddaba daawadayaal qisada dambiilihii amaba se mujrimkii quruxda badnaa halkaasi ayay ku eg tahay bal adigana daawanaya haddii aan aragtidaada aan wax kaa weydiiyo wiilkaasi maxaa u qalmaa ma u qalmaa 24 sano in lagu xukumo mise uma qalmee in laga naaqusiyo ayaa ahayd aragtidaada xagga hoose commentiga nagula wadaag muuqaalkeena maantana gabi ahaanba halkaasi ayuu ku egyahay waad ku maasantahay daawashada like share subscribe intaba dibkuguma ahayd ka soo fasax inta subscriberska cusub soo dhawaada waad ku maasantihiin subscribe-ka iyo saad ugu xiran tihiin iyo like-ta iyo waxaanaad واو wadkumaadsantiin farxad ay tahay inaad halkaasi la soo gaadho balse waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid haddii aad ku cusub tahayna channelkan aad ku soo biirto subscribe saartid haddii aad ka mid tahay subscriberska cusubna waxaan ku leeyahay soo dhawow channelka muu fahmi sidaas iyo nabadgelyo